marka leegada ahaa ee aad u barteen oo Soomaalidu inay qorto oo lagu Soomaalida luqad looga dhigo lagu sameeyay waa farti Ismaaniyada la sameeyay Ismaaniyada oo si fiican marka u hirgashay oo dadku ay inta badan waliba in la shaaciyo awood dhaqaale iyo awood dawladeed marka loo laahay in la shaaciyo oo dadku ay marka doonayeen in luqada ay ka dhigtaan afartoodii oo heer hirgasha meesha laga ikhtiraacay markii dambe lafteeda oo xataa la faaleeyay la isku qabtay teereenu ka dhignaa waqtigii 12 markii Soomaaliga la faafinayay waxay ahayd meelii la soo qaatay ee laga markii hore laga duulayay ahayno manbacay hore in la sameyn karo laga ogaaday is afkaranshaha iyo xiriirkii ka dhaxeeyay ilaa af Soomaali kale ma jirin la qorayay oo ay isku fahmayeen oo si fiican loo qorayay dadku wixii Carabiga yaqiinay oo gaar bay ahaayeen laakiin tii caamka ahayd markii aad loo fahmay oo si fiican uga hirgashay waxay farti Ismaaniyada ahayd oo aad loo hirgeliyo dadku ay waliba si fiican uga hirgashay dadkii markaa hawlaha ku jiray ay aad u wada fahmeen oo meel fiican gaadhay